Maalin wanaagsan ku soo dhowaada Odoros. Maanta waxaan eegaynaa buug la yidhaahdo Seven Habits of Highly Effective People oo macnaheedu noqonayo 7 dabeecadood ee ay leeyihiin dadka guulaysta oo uu qoray nin la yidhaahdo Stephen Covey 1989. Haddaba dabeecadda koowaad waxay odhanaysaa be proactive. Dadku sidoodaba ama waa reactive ama proactive. haddaba si aynu u fahamno farqiga u dhexeeya tusaale yaroo kooban goobadan koowaad waxaynu gelinaynaa waxyaabaha aynaan maamulkooga inagu lahayn sida cimilada siyaasadda dhaqaalaha aragtiyaha dadka kale goobadan labaadna waxaynu gelinaynaa waxyaabaha aynu inagu leenahay maamulkooga sida dabeecadaada anshaxaaga xirfadahaaga iyo waxbarashadaada haddaba dadka reactive-ka ahi badanka waxa ay waqtigooda gelinayaan ama had iyo jeer ka calaacalayaan waxyaabaha aanay maamulkooda lahayn hadda maanta iyo berri cadceedu xoog buu kulushahay ama dhaqaalaha adduunku hoos buu sii socdaa wax aliyo waxaan ka bedeli kara male halka dadka proactive-ka ahi ayagu waqtigooda gelinayaan waxa ay wax ka qaban karayaan inuu cilmigiisa qofku kordhin karaa xirfadihiisa uu badsan karaa anshixiisa iyo dabeecadiisa waxna wuxuu ku bedeli karaa midda kale dadka proactive-ka ah iyo dadka reactive-ka ahi isku si ugama falceliyaan xaaladaha la soo gudboonaada tusaale yaroo kooban haddii laba qof imtixaan wada galaan oo labadooduba imtixaanka dhacaan qofka reactive-ka ahi wuxuu eedda saarayaa ama iskuulka ama macalinka ama imtixaanka laftarkiisa balse qofka proactive-ka ahi isagaa mas-uuliyadda qaadanaya wuxuu odhanaya anigaa qaldamay waa inaan imtixaanka dambe si fiican wax u dhigto oon dadaalkayga kordhiyo dabeecadda labaad waxay odhanaysaa begin with the end in mind wax kastood rabto inaad bilowdo inaad og tahay dhammaadka iyo meeshaad u socoto oo aad leedahay ajenda cad sida injineerkuba marka uu rabo inuu guri dhiso marka hore waa inuu madaxiisa ka sawirto gurigu siduu ekaan doono marka labaad waa inuu dejiyaa qorshe guriga sida loo qaybinayo inta qol uu noqonayo inta albaab ama daaqadood ee uu gurigu yeelan doono markaa kadibna la hirgeliyo sidaas si leeg wax kasta oo doonaysa inaad noloshaada samayso waa inay maraan 3 qodob marka hore inaad sawirato marka labaadna samaysato qorshe aad marka saddexaadna hirgeliso waxaa muhiim ah in la isweydiiyo qof sidee ah baad rabtaa inaad noqoto nolol caynkee abaad doonaysaa inaad ku noolaato yoolka ama ujeeddada aad nolosha ka leedahay muxuu yahay maxaad jeclaan lahayd in lagugu xasuusto dabeecadda saddexaad waxaa odhanaysaa put first things first oo ah inaad mudnaanta siiso waxyaabaha mudan ama muhiimka ah haddii aad maanta dadka weydiiso waxa muhiimka ku ah noloshooda waxaa hubaal ah in dadka badankiisu ka odhanayaan inay caafimaadkooga ka shaqeeyaan inay sport sameeyaan ama inay faamilkooga waqti la qaataan aad buu adag tahay inuu qofku yidhaahdo inaan game ciyaaro ama tv-ga daawado ama social mediaha ku jiro balse haddii aad u fiirsato waxaad arkaysaa in waqtiga aynu gelinno wax aan macno sidaas lahayn sida inaad tv-ga daawato ama social mediaha ku jirto uu aad uga badan yahay waqtiga aynu gelinno waxyaabaha muhiimka ah sida inaad sport samayso ama aad buug akhriso ujeeddadu maaha inaad gebi ahaanba joojiso daawashada tv-ga ama social mediaha balse waa inaad waqtigaaga isku miisaanto oo aad geliso waxyaabaha iyo meelaha mudan haddaba 3 qodob oo hore oo ujeeddadoodu ahayd inay qofka ku baraarujiyaan inuu noqdo qof karti iyo go'aan leh oo madax bannaan ayaa intaa ku eg waxaynu u gudbaynaa 3 qodob ee ku xiga oo iyagu khuseeya la dhaqanka dadka kale cadda afaraad waxay odhanaysaa think win haddiiba uu yimaado gorgortan ama aad heshiis cid la gelayso inaanad u arag tartan oo aanad ka fikirin uun sidaad adigu uga faa'iidi lahayd heshiiska balse aad ka dhaqaaqdo aragti ah in labada dhinacba guulaysan karaan kana faa'iidi karaan heshiiskan oo ay jirto meel la isugu yimaado sidoo kale xiriirka aad la leedahay bulshadu inuu ku salaysnaado aragtidan oo ah inaynu kala faa'iidno oo aanu noqon xiriir dhinac u janjeera oo qof
keliya ama dhinac keliya faa'iido ugu jirto. dabeecadda shanaad waxay odhanaysaa seek first to understand and then to be understood, oo noqonaysa isku day marka hore inaad fahanto markaa dabadeedna adiga lagu fahmo. waxaa layna soo baray sida loo hadlo ama wax loo akhriyo ama loo qoro, balse laynama soo barin sida loo dhegaysto. taasina waxay keentay iminka markaaynu dadka la hadlayno inaynu u dhegaysanno sidii aynu ugu jawaabi lahayn, aynaan marnaba u dhegaysan sidii aynu u fahmi lahayn. dadku isku wada mid maaha oo aad buu u kala duwan yahay. qof waliba meel isaga u gaara ayuu wax ka arkaa. marka haddii aad rabto inaad qof fahanto, waxaa lagama maarmaan ah inaad dhegaysato oo aad weliba isku daydo inaad ka eegto halka uu isagu wax ka eegayo. waxaynu soo gaarnay dabeecaddii lixaad oo ah synergize ama iskaashiga, inaad ka faa'iidaysato iskaashiga. inaanad marnaba u arag caqabad kala duwanaanshaha dadku kala afkaar duwan yihiin ee aad u aragto fursad. maxaa yeelay marka ay isku yimaadaan dad kala afkaar iyo cilmi duwani, waxaa ka dhalanaya aragtiyo cusub oo aan marnaba imaadeen haddii aanay dadkani wada sheekaysan oo mid waliba goonidiisa u shaqeeyo. tusaale yaro kooban oo ku saabsan iskaashiga. ka soo qaad inaad hoos taagan tahay geed oo aad rabto inaad gurato midhaha geedka ku yaalla, balse keliya aanad gaarin. laakiin haddii aad iskaashataan qof waddada maraya ama meesha taagan, waxa hubaala inaad guran kartaan midhaha geedka ku yaalla. halkana waxaynu kaga gudbaynaa 3 dabeecadood ee khuseeyey la dhaqanka dadka kale. waxaynu soo gaarnay dabeecaddii 7aad uguna dambaysay buugga oo odhanaysa sharpen the saw, oo macnaheedu noqonayo minshaartaada afayso. haddaba tusaale aad u wanaagsan oo ku jira buugga ayaa wuxuu odhanayaa ka soo qaad inaad aragtay nin geed goynaya oo aad ugu rafanaya geedka goyntiisa, oo aad u timaado ood ku tiraahdo miyaad minshaarta soo afaysatid, oo uu kugu jawaabo waqti uma hayo, oo aanu u fiirsanba haddii uu minshaarta soo afaysto oo ay saacad ka qaadato uu geedka ku goyn lahaa 5 saacadood, balse imika ay ka qaadanayso 10 saacadood ugu yaraan. haddii qalabka aad ku howlgalaysaa aanu wanaagsanayn, waxaa adkaan doonta inaad fuliso hawsha aad rabto inaad qabato. haddii aad fulisana ay kaa qaadato waqti iyo tamar badan oo kuu badbaadi laha haddii aad wadato qalab wanaagsan. haddaba wax kasta oo doonaysa inaad nolosha qabato, qalabka aad ku howlgalayso ee ay tahay inaad ka shaqaysaa waa adiga. haddaba 4 meelood ee uu Stephen Covey leeyahay waa inuu qofku ka shaqeeyo ayaa waxa ay yihiin: qodobka koowaad, inaad jirkaaga ka shaqayso oo dhisto. caafimaadkaaga ku jira inaad jirkaaga ka shaqayso. waxaa muhiim ah inaad cunto wanaagsan cunto, waqti kugu filan seexato, waxoogaa jimicsi ahna samayso. qasab maaha inaad jiim tagto, inaad 10 daqiiqo orodo ama 30 daqiiqo lugaysaba kugu filan. qodobka labaad waa iimaanka. iimaanku waa waxa nolosheenna u sameeya macnaha ugu weyn. marka waxaa lagama maarmaan ah inaad mar walba ku dadaasho inaad samayso waxyaabaha iimaankaaga kor u qaadaya, sida salaada, qur-aankooda akhriso ama ducada. qodobka saddexaad waa maskaxdaada. waxaa muhiim ah inaad mar walba isku daydo inaad maskaxdaada kobciso. waxaad ku kobcin kartaa inaad buug cusub akhriso ama gabay Soomaaliya akhriso oo aad isku daydo bal inaad fahamto waxa looga jeeday, ama inaad xirfado cusub barato, ama adigu dadka dib wax u barto waxa aad taqaan inaad qof fahamsiiso. qodobka afraad waa xidhiidhka. inaad marka hore ka shaqayso xidhiidhka aad adigu la leedahay naftaada oo aad si fiican isku barato. markaa kadibna aad ka shaqayso xidhiidhka aad la leedahay familkaaga, asxaabtaada iyo bulshada kaleba. waxaa haddaba intaa ku eg buuggii 7 Habits of Highly Effective People. waxaa mar walba iga tala ah haddii aad helayso buug oo dhammaystiran inaad akhriso.